السلام عليكم وايد السلامي ما شاء الله تبارك الله شيطان كان ذكر ناري وزير كان وزارة ده هوينك يحقق الإنسان كي يقربه هذا ودويا وزير الدولة وزير كحجين كنا ويل كان حد قاه أتكو قيمة بدن معاك ده وزارة ده وقافتي أرمها دينته قبلها إنه حدقوه كويريهين بنت واحدين جنرال كقبلها الصوماليين جنرال سكيو عشان ديك مرة دو جوجو أنا مركز حال كي عادي معه وزير عبد الفتاح وزير كحجين كوزارة ده عشان ديك عيدا كحوق الدلكة بوليس كصوماليين نبت سجود يا أسلوبته أفرت اللي بحيان كلا دعين والسلام يا ملول بجوجان قدومي هيجا كحجين كأرمها بالشدة قدومي هيجا هوين كقرنكا قدومي هيجا دجمدة عن مرتضى قلنا ورت النبضة حلي بعنا دي هوري على لا صاحبة دي هالجمياش هوين كقرنكا كم تاعي قربها هيجا قبلها قدومياشة هوين كدجموين كقبل كبنادر أن كدولو أن كفانو أن كمتلو مسرح هوينك دمان وايد السلامة مدن وزير وكاغا مهد علينا يا مر هدوي وزير كإن هذا الشيء ما يركي هذا وجدد أن واحد لكريه وحي تاي إن أن افتيميو إن لبا قضب وحي ودحية أي قلطة ماشان لو حقوقرا حقوق ذا عرورتي هوينك إيوه maxaan ka qayb qaadanaynaa haweenka iyo doorka aan ku leenahay dib u xoreynta dalka waa laba qodob aan u baahannahay wasiirkeenu waa xildhibaanad qaran waxa ay ka shaqaynayso macnaheeda wasiir Khadiijo waa wasaaradda ugu awood badan wasaaradaha marka la fiiriyo waayo looma dhiibin gidaar iyo darbiye dad ay xukuntaa dad Soomaa waa gabar dad haysata haddana maxay haysataa dumar ay haysataa marka inaad ka muuqatid wasaaradaha dhan aad wasiirkoodii madaxdooda ugu sarreyso aad tahay ugu howlkarsan tahay miyaa isku diidanahay waxay tahay sababta waa hooyada halkay ka baahan tahay iyada og inaan mar kale dhaho u celiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qalinkaad wasiir Khadiijo ku ogolaateen waxaad ugu hiiliseen haweenka Soomaaliyeed Khadiijo ma ay haweenka loo hiiliyay inta kadib anigoo ka faa'iideysanaya fursadan hortaalo waa laba shay inaan helno sharci dastuuri ah oo caruurteena iyo haweenka lagu difaaco hadday noqoto kuwa hadda dib u xoreynta cadowga markii laga kiciyo waxaa jira hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedu xoog looga watay gabar Soomaaliyeed oo xoog lagu guursaday ajnabi loo guuriyay gabdhahaas inaan la faquuqin la soo dhaweeyo ayaga laftirkoodana xuquuqdooda in la difaaco waa loo baahan yahay xeerarka caalamigaana ee caruurtii haweenkan inaan helno waxa ka rabnaa wasaaradda awqaafta sababta ay noo joogtana waxay tahay waa wasaaraddeeni wixii diinta inoo diidayso inaan iska dhaafno maaragtay wasiir dawlaha iyo wasiirkeeni inaan dhahno wasiir Mukhtaar imaatinkiisa macno weyn ay gabdhaha Soomaaliyeed ugu fadhidaa inaan dhahno wasiir waqtigaadna siisay waa kaaga mahad celinaynaa wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxaan ku tabaynaa dadka qalbiyada dhaxalaystay dadka waxay u baahan yihiin diintooda in loo sheego annagoo ku dhalana oo og ayaa qofka bini aadanka uu qaldami karaa maantay waxay taagan tahay dalka in dib loo xoreeyo sideen ku xoreyn karnaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaana looga baahan yahay xilligan wiilka xabadda ridaya jiida taagan biyaha aan doonan karin soo bixi karinin wuxuu ka tagay hooyadiisii caruurtiisii wuu og yahay laba mid inay tahay asoo gob ah oo guuleystay inuu soo noqdo iyo inuu ku dhinto waxba ugama dhaxeeyaan askariga Soomaaliyeed kaasaan nooga baahan inaan dhiiri gelino baaq inaan u dirno gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee aadka u qiimaha badan iyo midda gudaha joogtaba inaan bilowno contribution ama wax la dhaho tabarucaad fundraising ama nooci la raba la dhaho inaan wax ururino waad ogeydeen abaaraha markay dhacaan gaar ahaan gabdhaha gobolkan Banaadir habka wax loo ururiyo dadka loo taageero waa taqaanin biyo baxadii dabaylihii badihii fatahay markay ku dhufteen Garoowe Hirshabeelle biyuhu ku fateen gurmadkan ka qayb qaadanay markay la soo barakacana waan caawinaa maantay shalana ciidankeena
ayaan daba soconay cadowgaan iska xoreynay maantay inaan magaaladeena amnigeedana suganno ciidamada jiidana aan sidaan sabiib iyo caanoole iyo aan ugu geynaynay qoryoolay iyo markii la xoreynayay dhulkaas oo dhan annaga haweenka daannaa waxbaan diyaarinaynay kaasay gacanteenu gaartay maanta miyaan ka baqaylaynaa meesha nabadoonka lagu dilay beledweyne miyaan ka baqaylaynaa inaan dhahno waa mahadsantihiin nabadoonkeenna allaha u naxariiso meel generaalkii qaybta guud ee gobolka banaadir farxaan uu ku dhintay meeshaad aragteen hirshabeelle ma nafaan raadsanaynaa meel generaal ku dhintoo nabadoon ku dhintay waa kalamba baxdadii laba waaye waa tirtiraynaa cagtaan marinaynaa waana guulaysanaynaa wax kale miyaa jiro shabaabka waxaan leenahay waa jabeen way u dhammaatay wakhtigooduna wuu dhammaaday maxaana looga baahan yahay inaan iskaashanno degmo kastoo waxaan ka codsanayaa gabdhahayga ururka haweenka oo hadda fadhiyo inaan bilowno abaabul gabar walboy sabaayad buskud kalluun hilib daawo daryeel wax walbaba wasiir Khadiijo waa kaaga mahadcelinaa hogaaminta aan ugu hogaaminaysid sida wanaagsan xilligan hadda aan joogno gabdhaha qaranka buskud ay dubayaan waxay diyaarinayaan buskudkoo loo diray annagana wixii kaloo naga dhiman ayaan aniga iyo gudoomiye basmi iyo gudoomiye Zaynab annagoo gabdhahan ku faanayno ayaan ku dadaali doonaa wasiirkeena oo wasaaradda awqaafta arrimaha diintana asagaa wuxuuna siin doonaa talada ugu dambayso ee hadday noqoto jihaadka iyo hadday noqoto xaquuqdeennaba asagaa nooga dambaynaya waa mahadsantihiin dhammaan waxaan leeyahay ballanteenu maxay tahay inaan iska celinno cadowga waa guulaysanaynaa waan garanayay inaan ka gudbayno waan garanayay inaan ka gudbayno gowraca shabaabka inaan ka gudbayn garabkiina soconaaye geeshka iyagoo guulaysta garabkiina soconaaye geeshka iyagoo guulaysta 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 guul lagu raayo guulaysta koonfur galbeed ma aadaynaa jubbaland ma tegaynaa galmudug ma tegaynaa hirshabeelle ma tegaynaa xamarna katimay katim aan ku dheelaynaa katimay katim waa inoo adinka iyo annaga